بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان المبارك دمان ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim dhammaantiin waxaa ku soo dhawaataa faa'iidada bisha barakeysan ee Ramadaanka ay noo leedahay iyo dhammaan la xidho meel kasta oo cunto waqtiga la sooman yahay la sameeyo. mahadoo dhan waxaa iska leh Allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey inuu caafimaad qab inagu soo gaarsiiyo bisha barakeysan ee Ramadaanka. haddaba waxaan idin leeyahay dhammaantiin Ramadaan Kariim, Ramadaan al-Mubaarak. guud ahaan ummadda Islaamka meel kasta aad joogtaan waxaan rabaa inaan hadalkan yar ee kooban aan uga faa'iidaysto bishan barakada leh faa'iidada ay noo leedahay. sideen wada ogsoonahay bisha barakeysan ee Ramadaanka waxay ka mid tahay waajibaadka Allah subxaanahu wa tacaala uu waajib yeelay isagoo Allah quraankiisa ku yidhi yaa ayuha alladhiina aamanuu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. آيادا أي وحي نوعدين السهل بشهر رمضان تهي إلا الصوم الواجب. آيادا معناها ذو وحي مطانسة هو اللي رسول كيس الروميو وحال إذا هو واجب يلي إلى الصوم بشهر رمضان سيدا لو هو واجب يكوي كهري. markale Allah subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay barakada iyo wanaagga ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaanka wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. ayadan ayaa waxay noo tilmaamaysaa in bisha Ramadaan ay tahay bisha soo degay quraanka kariimka ah. bisha Ramadaan waxa ay leedahay khayr badan isla markaana aynan ku soo koobi karin hadalkan gaaban. sidoo kale xadiis ka sugnaaday rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu micnihiisu ahaa Allah wuxuu yiri amal kasta oo ibn aadamku uu qabto isaga ayaa iska leh soonka mooyee laakiin soonka ana iska leh ayuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala anaana abaal ka marinaya ayuu yiri Allah. haddaba haddii midkii soomo ha iska ilaaliyo hadalka xun aad ayay u badan yihiin axaadiista ka hadlaya bisha Ramadaan. haddaba qof kasta oo islaama waxaa ku waajib ah inuu soomo bisha Ramadaanka maadaama ay leedahay faa'iidooyin badan jannadana lagu galayo. waa ku waajib qof kasta oo islaama oo qaangaara caafimaadna qaba inagoo shuruudaheena haddii Ilaahay ka dhigo ay ka soo sheegi doona insha Allah. waxaa hubaala in la soomaa inay u wanaagsan tahay caafimaadka maadaama uu jirkeenu yahay warshadiina waxay nasataa sanadkiiba hal mar markaasina waa bisha Ramadaanka. taasina waxay inoo cadaynaysaa in bisha Ramadaan ay fi aakhiraba inoo leedahay faa'iidooyin badan oo ay hal mar aan la soo koobi karin. maskaxiyan iyo jir ahaanba caafimaad la isku raacay ayay leedahay. waxa kale oo ay dadka wax ka haysta xanuun xasuusinaysaa macnaha dadka maalqabeennada ay waxay xasuusinaysaa bishan ama baraysaa dhibaatada ay gaajada ama baahidu leedahay si uu wax u taro ama ugu warayo dadka mar kasta sida u gaajaysan ee imtixaanan. duniduna waa imtixaan iyo wareegto oo maalin walba nin baa wax haya waa gacan maran yahay waa bowda ragba maalinba mid baa bannaan. maanta haddaad daragsan tahay oo Allah subxaanahu wa tacaala uu ku nimceeyey beritana waxaa laga yaabaa mid maanta gaajaysan inuu dhalgo oo aad adigu baahato. sidaa awgeed baa laynoo tababarayaa oo xikmado badan oo rabbaaniya ayaa ku jira Ramadaanka. waxaa kale oo ay faa'iido u noqonaysaa walaal kasta oo balwad lahaa sida sigaarka inuu iska joojiyo oo fursadda ay ka faa'iidaysto. waxaan haddaba bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto kula talin lahaa inay bishan barakeysan ee Ramadaanka meel kasta oo xaaraan lagu iibiyo la xiro.
ولا لا دقالم وولكن عبد الحليم سعيد وإذن للرمضان المبارك رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.